السلام عليكم soo dhawaada asxaabta maanta waxaan sharxi doonaa qaabka application-ka tufaax loo soo degsado qaabka la iskaga diiwaangeliyo iyo qaabka loo isticmaalo ugu horreyn hadduusan ku degsan application-ka tufaax tag Play Store-kaaga korkiisa ku qor tufaax markaasaan u qorno search-na leenahay automatic wuu noo soo bixi doonaa haddii kaleetana linkiga Play Store-ka automatic WhatsApp-ka idinku soo diri doonaa marka idin ku soo dirno kadibna click dhaha halkaan idin keeni doonaa hadduu ku degsan yahay install aan leedahay hadduusan ku degsanayn open leh halkaan markuu ku keeno fadlan haddaad iska diiwaangelin fadlan halkaan taabo registration now kadibna buuxi information-ka ku soo bixi doona ugu horreyn kor waxaa gelin doontaa magacaaga oo dhammaystiran anaga magaceena oo dhammaystiran ayaan gelin doonaa cali maxamed abdullaahi halka ka hooseysa waxaan gelin doonaa nambarkeena telefoonka eber telefoonkan dhammaystiran halka marka saas u gelino telefoonkayga waxaa ka bilaabaa 615 ka bilaabay marka saas u gelino halka hoos waxaa gelinayaa emailkayga markaan halka hoos emailkayga saas u geliyo waxaa sii gelinayaa passwordkayga oo ah emailkayga tusaale emailkeena waxa weeyaan anaga gmail.com okay passwordkeena ayaan gelinaynaa halka ugu hooseyso qasab ma passwordka gmailka inaad gelisid qasab ah password aad ma walba xasuusnaa kartid inaad gelisid passwordka mar labaad ku celinaysaa type marka kood waa gelin marka labaadna waxa la leeyahay type password again uu leeyahay marka labaad ku celinayna hadana okay halka hoose referral ID-ga ka bood qasab ma waad ka boodi kartaa halka hooseyso agree button ka saar halkan dad badan ay soo weydiinaya waxay leeyihiin maxaa ku yeelinaa qasab ma ahan halkan waxa inaad gelisid mana loo baahan waa ka boodeysaa halka hoose gelinaysaa halka hoose waxa la leeyahay agree kadibna sign up aan leenahay sign up marka dhahno automatically numberkeena aan ka bilaabnay 615 iyo aan dhamaystirnay kadib waxa leenahay send OTP ama dir OTP dir aan leenahay dir marka dhahno si automatic ah message ayaa noo soo dhici doono message waa noo soo dhacay waa kanay boxka message-yada tag marka tagtid kadib your tag ayaa message ku soo dirtay automatically password OTP gaan ugu hooseyso ayaa soo qaadana oo ah continue 8 halkan aan gelinana continue 8 kadib waxa leenahay verified automatically hadda application-ka waan iska diiwaangelinay oo sidaas waxaa loogu dhamaatay qaybteena koowaad isdiiwaangelinta application-ka tufaax waa macsantiin insha Allah waxaan noogu xigi doonto habka lacagta loo soo dhigto